بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. ولا ليال درسينا دينيغاهو وهو كساب سيهي صلاة أو مركاسة ركن من أركان الإسلام. إسلام مركاسنا ركن قلبات وين أركان الإسلام بعد الشهادتين. markii tawxiidka laga soo tago arkaanul islaam oo markaasi shahaadateynki iyo salaadii iyo zakadii iyo soonkii iyo xajki ah oo nabigeenu yiri calayhi salaatu wasalaam: buniya al-islaamu calaa khamsin: shahaadati an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadan rasuulullah wa iqaami as-salaah wa iitaa'i az-zakaa wa sawmi ramadaan وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. marka salaadu waxa weeye waa rugni oo weyn oo arkaanul islaam kamida, waliba rugniga labaad ah. way uga duwan tahay arkaanul islaam ayadoo xagga markaasi ku xigta darajada shahaadateynka inta kaleentoodna ka fadli badan. waxay salaadu uga duwan tahay arkaanul islaam. salaada markii la farad yeelay oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam habeenkii laylatul israa wal mi'raaj ahaaday, nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo farad yeelay ayadoo xadiis dheer uu ka waramayo maraaxiishii markaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam la marsiiyey iyo markii dambe intii lagu soo koobay oo 5 salaadood oo hadda aynu dukanayna. marka hadda salaadu waxa weeye maalintii oo habeen iyo maalin ah 24 saac 5 jeer ayaa salaad farada ayay qofka ku soo noqonaysaa, oo waxa weeye 5 jeer ayaa maalintii ay qofka salaadu ku soo noqonaysaa. marka waxa weeye takaaliif culus oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala adoomankiisa uu saaray. qofkii ka tagana waxa weeye markaasi uu noqonayo qof islaamnimadii ka taga uu noqonayo. marka salaadu rugni aad iyo aad weyn weeye. ilaahay subxaanahu wa ta'aalaana salaada fadligeeda quraanka ayuu uga waramay, rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam axaadiis ayuu ku cadeeyay. salaada marka waxaa la rabaa ihtimaam gaara inaanu siino, maadaama shicaarkii islaamka kuwa u weynay ay tahay, oo hadda rugnigaasu haddana shacaa'irta islaamka uu weyn yahay. dadka muslimiinta markay salaada isugu tagaan waxa weeye shaciiro oo markaasi min shacaa'irillaahi ah. waman yucadim shacaa'ir allaahi fa innahaa min taqwa alquluubi ayuu dhahay alla subxaanahu wa ta'aala. ilaahay diintiisa waxa lagu aqoonsado qofkii weyneeyane waa qof taqiya oo qalbigiisu alla kacabsi uu iska leeyahay. salaada marka waxa weeye luqada markii la yidhaahda ducaa la yidhaahdaa khayr lagu duceeyo. sharcigana waxaa la yidhaahdaa aqwaalun wa afcaalun muftatacatun bitakbiiri mukhtatamatun bitasliimi bisharaa'ida makhsuusa. waxaa weeye aqwaal oo waxa weeye arkaanu salaad, waxaa weeye aqwaal qowlyaal oo markaasi rugniya iyo qowlyaal iyo waxaa weeye arkaan oo rugniya oo qowliya iyo arkaan oo ficliya ayaan dhihi lahay. arkaan oo waxaa weeye qowliya taasoo markaasi waxa weeye 5 gaaraysa. inta kaleentoodna arkaanu salaad waxa weeye noqonaysaa afcaashay noqonaysaa. afcaasha ayaa badan, walow markaasi culamaa'ul islaam ama fuqahadu arkaanta markaasi qolaba si ay u tiriyaan, laakiin shay iska mashhuura oo la yaqaano weeye. laakiin annagu hadda darsigeennan waxaan uga hadlaynaa fariidatu salaad iyo wa fadaa'ilihaa. waxaa kaloonu qaadan doonaa darsi kaloo kan la xiriira oo asaguna isla salaada ka hadlaaya, fadaa'isha salaada markaasi asaguna qayb ka sii ah, si waxa weeye qofka muslimka ah oo rugnigaas weyn gudanaya
oo mar walba uu ku soo noqonayo uu ogaado ihtimaamka ama muhiimadda markaasi uu leeyahay rugnigaas uu iska leeyahay. horta marka ugu horeysa waxa weeye salaada ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddiisa ayuu ku faral yeelay oo ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala fa aqiimu salaa, salaada ooga ayuu dhahay. iqaamadan waxay keenaysaa salaada waxay iska leedahay arkaana iska leedahay, waxay iska leedahay shuruuda iska leedahay, waxay iska leedahay aadaab iska leedahay, waxay iska leedahay hay-aad. waxa salaada markaasi ku jiroo dhan markii lala yimaado ayaa iqaamo la yidhaah. ilaahayna aqiimu salaata ayuu dhahay iyo aqimi salaata, ee salaada dukada lama dhihin. salaada marka waxa weeye in waxaasoo dhan markii lala yimaado salaad oo markaasi saxa ay noqonayso oo ajirkeedu uu kaamil yahay ayaa la ogaanayaa. haddii marka arrintaas laga tagone salaad naaqisa ay noqonayso qofkiisi faa'iido badan aanan u yeelanaynin, sida hadda insha allahu tacaala duruusta soo dambo soo socoto aynu ku qaadan doono. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala salaada aqiimu salaa ayuu dhahay. amarkan wujuub weeye, waa amru lilwujuub weeye. marka wuxuu haddana faa'iideynayaa salaadu faral inay tahay oo qof kasta oo muslima oo mukallaf ah salaadu faral ayay ku tahay, waajib oo markaasi oo waxa weeye rugnin min arkaan alislaam weeye. oo weliba hadda marka haddii alla yidhaahdo duruusteenna dambaanu ku qaadan doonaahe aqwaasha culamaa ul islaam iyo ahlulmadhabku waxa salaada ay ka yidhaahdeenna waanu ku tegi doonaa. qofka salaada ka taga inuu maaragtay muslim yahay, inuu gaal yahay, wixii markaasi lagu kala tegey iyo qofka ka tegaaya qaybaha uu yahay ayaan ayada laftirkeedaanu qaadan doonaa haddii alla yidhaahdo. hadda salaaddii markii la isfaray oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aqiimu salaa uu dhahay, inna asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta ayuu dhah ilaahay. salaadu dadka mu'miniintaa waxay ku tahay dushooda oy weligeedna iska ahaanaysaa mid maaragtayaa lagu qoray oo faral ah, haddana waqti iska leh. salaadu waxa weeye awqaaday iska leedahay, awqaad layidhaha awqaatu salaad oo 5 ah. 5taas salaadood 5 waqti ayay iska leedahay. salaad haddii waqtigeeda laga hormariyo ansaxaysa ma jirto. haddii laga gadaal mariyo in cudur uusan jirna sidaasoo kale weeye. waxaa la rabaa salaadaas 5taahu 5 waqti oo markaasi mu'aqada weeye. ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay horta marka hore waa maktuubo oo kitaabantaas waxa weeye waa maktuubo weeye. haddana waa mawquuto, waa faral oo daatu waqtin ah weeye. haddana markaasi waqtigaas ayaa lagula imaanayaa. taas hadda laftirkeedu marka ilaahay uu leeyahay kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta, salaadu haddana faral inay tahay ayaa markaasa haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku caddaynayaa. marka waxaa kaloo alla dhahay subxaanahu wa tacaala aayaddaa suuratunisaa ay ku jirtaahe suuratulcankabuud ilaahay wuxuu yidhi wa aqimi salaata ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar. aayaddan iyaduna waxay faa'iideynaysaa salaada faralnimadeeda. waxaa kalooy faa'iideynaysaa salaada faa'iidada iska leedahay. salaada haddii la dukado faa'iidada laga helaayo oo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa aqimi salaa, salaada oog ayuu dhahay. salaada arkaanteeda iyo shuruudeeda iyo aadaabteeda wax walba kula imow. maxaa yeela inna asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar, salaada haddii lala yimaado oo si maaragtaya wanaagsan loo kaamila loola yimaado loo dukado waxay keenaysaa salaadaas qofka musalliga ahoo dukanaya inay ka reebto dembiga faaxishada ah sida zinadoo kale iyo dembi kastoo fool xun. munkarku waa caam weeye, dembi fool xun oo dhan inay ka reebto ayay u keenaysaa. laakiin waxaa ilaahay uu ka hormariyey inna aqimi salaa, salaada markaas in lala yimaado oo si waafiya loola yimaado arkaanteedii iyo shuruudeedii iyo aadaabteedii hay-aadkeedii marka la yimaado ayaa faa'iidadeedu waxay noqonaysaa qofka inay markaasi faaxishada iyo munkarka ay ka reebto. marka haddaba marka ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala inna asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar, waxa weeye salaada faaxishada iyo munkarka reebaysa waa salaada markaasi ay kaamil u tahay shuruudeedu, arkaanteedu ay kaamil u tahay oo khushuuc awalkeeda ilaa aakhirkeeda lagu khushuucsanaado. haddana waxa weeye
qalbi khaalisa lagu dukado oo ilaahay daraaddiisa loo dukanaayo oo alla subxaanahu wa tacaala camalka loola jeedo sidaas ayaa markaasaa laga wadaa faa'iidadii marka salaaddii haddii si wanaagsan loo dukado ka dhalatayaa waxay noqotay ilaahay inuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar oo qofka salaada dukaday ayay faaxishada iyo munkar ka reebaysaa arrintaas marka waxaa weeye masiye oo kulliya lisalaad weeye waxaa weeye salaada qofka akhlaaqdiisaa toosaysa markuu qof musalliya yahay waxaa markaasi waxaa weeye wanaagsanaanaya xataa caafimaadkiisa sixatuljismiga kusugan jirkaa ku caafimaadaya maxaa yeele culummadu waxay yidhaahdaan inna man yuxaafidu calayha ya'manu min maradi dahri wa tasallubi sharaayiin waxay yidhaahdaan qofka oo maaragtay salaada ilaaliya wuxuu ka aamin noqonayaa cudurka dhabarka ku dhaca ayuu ka aamin noqonayaa cudurka markaasi asaguna maaragtay ku dhaca waxa weeye keliyaha ku dhaca amase markaasi ku dhaca xameetiyaasha ku dhaca cudurradaas xataa oo markaasi uurku jirka ku dhaca bacdi badan oo ka mida ayaa salaadu haddana daawo u tahay maxaa yeele salaadda waxaa ku sugan xarako oo markaasi jirka dhammaantiis qofku markuu salaada dukanaya jirkiisoo dhammaa xarakaadaya marka sidaas ayay markaasay faa'iido badan ayay u leedahay haddana waxaa weeye salaaddu waxay ammaan qofka uga noqonaysaa amraasha oo markaasi ka dhasha qilatul xaraka weeye xarakada yar sida markaasi waxaa weeye cayilkaoo kaleentood oo markaasi dadka guryaha iska fafadhiya ku batay weeye maxaa yeele nabigeenna calayhi salaatu salaam wuxuu dhahay adiibuu dacaamakum bidikrillaahi wasalaati ou dhahay rasuulkeenu wuxuu dhahay calayhi salaatu salaam waxaad ku dhalaalisaan oo aad ku baabi'isaan dacaamka aad cunaysaan ilaahay dikrigiisa iyo salaada ku baabi'iya ayuu dhahay ilaahay dikrigiisa iyo salaada ku baabi'iya ayuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo waxaa laydinka rabaa inaad maaragtay salaada waxa weeye aad si wanaagsan aad u gudataan marka hadda qofku haa weeye markuu salaada uu dukanaayo cuntada markuu cuno bacdigeeda ee markaasi salaaddii uu la yimaado oo salaaddii uu dukado ilaahay ou xuso waxaa markaasi dacaamka ou cunay ayaa xataa baaba'aya oo jirka ku baaba'aya walaa tanaamuu calayhi weeye dacaamka ha ku seexana fa taqsuwa quluubukum laabtiinu ay engegta marka waxaa la rabaa markaasi dacaamka inaan lagu seexanin markaad wax cunto waa inaad salaad dukato ilaahay aad xusto si waxaa weeye dacaamkaasu halmi oo u helo dacaamka u baaba'o dadkan hadda masalanba waxa weeye oo cilmaaniyiinta ama dadkan maaragtay salaada aan dukanin oo gaalada waxa weeye waxyaabo waxay sameeyaan jimicsi iyo jariisiko wax wadan iyo xarakaaday sameeyaan hadda waxa weeye qofka muuminka oo musalliga ah xarakaadkaas waxaa uga khayr badan meeshii uu ku bixi lahay salaada inuu ku bixiyo hadduu salaad la yimaado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xuskiisa uu badiyo oo daacada ilaahay uu badiyo waxaa imaanaysa inuusan waxaasoo dhanba uusan u baahnaanin ileen ayagu waxa weeye salaad ma dukanayaan markaasay waxa weeye xarakadiina way doonayaan inay sameeyaan marka hadda adigu waxaa samaynaysaa xarako ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ku xusayso taasaa marka waxaa kaaga dhalanaya faa'iido fara badan oo aan la soo koobi karin marka ilaahay wuxuu dhahay inna salaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkari u dhahay salaaddu waxay reebtaa faaxishada iyo munkarkay reebtaa hadda waxa ay culummadu yidhaahdeen aayaddatan waxaa lagu cileeyey salaadda markay salaad oo kaamila ay tahay ayay faaxishada iyo munkarka marka hore reebaysaa waxaa la yidhi waxaa laga yaabaa in la arko dad salaada dukanaaya isla markaasna faaxishada iyo munkarkii aan ka haraynin oo faaxisho iyo munkarku dhex jira in la arko ayaa dhici kartaa la yidhi saa la yeelayaa culummadu waxay yidhaahdeen ileen ilaahay subxaanahu wa tacaala qowlkiisu run weeyo alla wuxuu dhahay inna salaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkari u dhah way yidhaahdeen salaada oo munkarka iyo faaxishada ilaahay uu ku reebaayo waa salaada maqbuulada ahay dheheen salaada markii qofka laga aqbalo faaxishada iyo munkarka ayuu ka harayaa marka faaxishada iyo munkarka salaada reebaysaa
salaada maqbuulada weeye qofka haddii salaad uu dukanayo macaasidina oo ku dhex jiro waxaa la ogaanayaa qofkaas salaadiisa inaan la aqbalin baa la ogaanayaa calaashaan ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala binasi alqur'aan uu ku leeyahay ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkari u dhah alla subxaanahu wa tacaala marka haddii saaxiib salaaddii faaxishadii munkarkii reebaysaa alla uu leeyahay waa reebaysaa laakiin laabudda waxaa ah salaaddaas salaad maqbuula inay tahay qofku wuxuu ogaa karaa salaadiisa in la aqbalay iyo inaan la aqbalin salaada markuu dukado salaaddu markay u keento tawaaluc iyo khushuuc iyo alla kacabsi iyo xumaanka dhowrsi markay u keento qofkaas salaadiisu salaad maqbuulaa weeye haddii salaaddii uu dukanaayo isla markaasina waxa uu ka taagsaaya aan la aragne waxaad ogaanaysaa markaasi qofkaasu salaadiisu inay qayru maqbuulo ay tahay maxaa yeele waxaa lagu adkaynayaa xadiis nabigeenu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam man lam tanhahu salaatuhu cani alfaxshaa'i waalmunkar falam yazid cinda allaahi ilaa bucdan qofkii salaadiisa aysan ka reebin faaxishada iyo munkarka ilaahay agtiisa ka siyaasa maayo ilaa alla ka dheeri mooye maxaa yeelay ilaahay salaaddii markii la dukado waxa uu dhahay tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar ayuu dhahay hadday dhacda marka qofkii salaaddii inuu dukanaayo faaxishadii munkarkiina uusan ka haraynin salaadan ilaahay ka aqbalin weeye xadiiskaasaana maaragtay xadiis isagana sanadkiisu xasan yaha weeye waxaa ka imaanaya qofkaasu inuusan ahayn qof markaasi salaadiisa la aqbalin inuusan ahayn marka walaalayaal salaadu waa shay aad iyo aad u muhiima qofka muslimkaa salaada waa inuu ku dadaalo arkaanteeda uu ilaalshaa hay-aadkeeda uu ilaalshaa aadaabteeda uu ilaalshaa shuruudda waa inuu ilaaliyaa dahaarada waa inuu ilaalshaa wax badan salaada waa inuu ilaalshaa oo salaad oo markaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala uu rafcinaayo oo maqbuulo ah inuu la yimaado oo salaada aad iyo aad loo dhisaa loo baahan yahay salaaddii ayagoo darfa go-an oo baaba oo wax kasta ay ka halaysan yihiin haddii la dukadaaho salaadaas waxba tari mayso waa salaada dad badan oo masaajidda buuxa ama meel walba salaada ku dukanaya haddana u keentay inayna waxay ka leexanayn aysan jirin oo wax kastoo faaxisha iyo munkara aysan ka leexanaynin waxaa yeela salaadooda ilaahay kama aqbalin subxaanahu wa tacaala saasaa la leeyahy salaadda marka waa sidaasoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa maaragtay salaada sidaas nooga dhigay haddii aan dukanno waxaa ilaahay noogaga reebay subxaanahu wa tacaala munkarka iyo faaxishada ayuu ilaahay nooga reebay maxaa yeela rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay 5 salawaatin iftaradahunna allaahu caza wajalla man axsana wuduu'ahunna wa sallaahunna liwaqtihinna wa atama rukuucahunna wa khushuucahunna kaana lahu cala allaahi cahdun an yakfira lahu waman lam yafcal falaysa lahu cala allaahi cahdun in sha'a gafara lahu wa in sha'a cadabahu xadiis abi daa-uud iyo nasaa'i ay wariyeen waa urasa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam 5 salaadood ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala faral yeelay xadiiskaa markaasna wuxuu caddiinayaa xadiis dheer bacli ka mida weeye waxau markaasi caddaynayaa salaada faralnimadeeda ayuu caddaynayaa marka waasuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam man axsana wuduu'ahunna 5taas salaadood weesadooda qofka wanaajiya isbaaqul wuduu inuu la yimaado weesada horta markaasi waxay iska leedahay faraa'il oo furuudul wuduu ayaa jira iyo sunanul wuduu ayaa jira inuu maaragtay furuushi iyo sunantii uu la yimaadaa weeye markaas ayaa weesadii horta laga bilaabaya weesadii ayuu wanaajiyo dhah rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa sallaahunna liwaqtihinna haddana 5ta salaadood waqtigooda ku dukada oo waqtiga salaada ilaaliya wa atama rukuucahunna rukuucooda taam yeela iyo wa khushuucahunna khushuucooda waxaa weeye arkaantii iyo hay-aadkii in layska doonaayo ayaa laga qaadanayaa kaana lahu cala allaahi cahdun ilaahay subxaanahu wa tacaala ballan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u qaaday oo ah an yakfira lahu ilaahay inuu dhaafaayo qofka salaada saas kula yimaada kaana lahu cinda allaahi weye wacdun bilqufraan ilaahay agtiisa wuxuu ku leeyahay yabooh alla subxaanahu wa tacaala u yaboohay inuu maaragtay dembigiisa dhaafaayo waman lam yafcal qofkaan saa samaynin oo salaaddii masalanba waxa weeye weesadii ma wanaajin waqtigii kuma dukanin rukuuci iyo sujuudi iyo arkaantii dhammeeday oo salaaddu iska laheeda ma uusan taam yeelin salaad oo jajaban ayuu dukaday qofkii sidaas anan samaynow dha rasuulku calayhi salaatu wasalaam
falaysa lahu cala allaahi cahdu ilaahay agtiisa ballan uma yaalo. ballan markaasi waxaa weeye salaadaas oo markaasi ku liibaanayo oo uu ku koraayo ilaahay agtiisa uma yaalo. in shaa gafara lahu ilaahay hadduu doona u dhaafa, wa in shaa cadabahu hadduu doona ilaahay waa cadaabaya. saasaa meesha taala. marka meeshaas taariku salaadka si gaara ayaan uga hadli doonaa haddii alla yidhaahdo. marka waxa weeye qofkaas wuxuu ku jiraa taxta almashii'a wax la yidhaahdo ayuu ku jiraa, oo ilaahay inuu u dhaafo iyo ilaahay inuu cadaabo ayuu u dhexeeyaa. hadda midaad noqonaysa ma taqaanide inaad salaadii aad maaragtay weesadeedii wanaajisid, waqtigeeda aad ilaaliso, arkaanteeda aad ilaaliso, hay-aadkeeda aad ilaaliso, taas ballan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu qaaday rasuulkiisu qofku inuu ilaahay agtiisa uu liibaanayo oo salaadaas salaada uu ku kore ay noqonayso. marka sidaasaa waxaa loo baahan yahay salaaddii in loo ilaaliyo. xadiiskaasna waxaa weeye xadiis abi daa-uudna sunankiisa uu ku wariyey, nasaa-ina wariyey, xataa imaamu maalik wuxuu ku wariyey kitaabkiisa muwada'a sanad saxiixa ayuuna ku wariyey. marka sidaas ayaa waxaa weeye salaaddii farad u tahay in loo ilaalishana ay u baahan tahay. xadiis kale oo saxaabiga la yidhaha abi qataada laga wariyey ayaa wuxuu ahay inuu nabigeenu dhahay calayhi salaatu wasalaam xadiisu qudsiya, qaala allaahu caza wajalla, ilaahay wuxuu yidhi innii iftaradtu calaa ummatika 5 salawaati. nebi moxamedow ummadaada waxaan ku farad yeelay 5 salaadood. wa cahidtu cindii cahdan ballan ayaana agtayda u dhigay oo ah annahu man jaa'a yuxaafidu calayhinna qofkii salaadahaas la yimaada asagoo ilaalinaaya liwaqtihinna waqtigooda, waqtiga dhowraaya, adkhaltuhu ljannata janno ayaan gelinayaa. marka hadda wacdiga ilaahay oo runtaa iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam, salaada markaasi jannada lagu gelaayo waa salaada la ilaaliye weeye. sidaan haddana aan soo marnay salaada markaasi oo waxa weeye munkarka iyo faaxishada reebaysa inay ayaduna tahay salaada markaasi la hagaajiyey inay tahay ayaan idana soo qaadanay. waxaa kaloo dhahay alle waman lam yuxaafid calayhinna qofkan salaadahaas 5 aan ilaalin falaa cahda lahu cindii agtayda ballan uma yaalo. wax ballana oo aan u qaadaayo oo agtayda u yaala ma jirto ayuu dhahay alla subxaanahu wa tacaala. marka hadda labadaan xadiis waxaa ku sugan ilaahay iyo addoonkiisa ballan inuu u dhexeeyo, oo ballankaas uu yahay qofkii salaada ilaaliya ee maaragtay faqad wafaa bicahdihi ballankii ilaahay buu oofiyey. walahu cinda allaahi almansilatu alculyaa ilaahay agtiisana darajo aad u saraysa ayuu ku leeyahy. waman lam yuxaafid calayha qofkaan ilaaline faqad naqada alcahda ballankii oo buriyey. amarkiisuna ilallaahi weeye, allah haddou doona waa cadaabaya, haddou doona ilaahay waa cafinayaa. marka waxaa weeye sidaas ayaa marka salaaddii oo aanu ku dadaalno waxay noo keenaysaa ilaahay agtiisa ballankiisa inuu maalinta qiyaame noo oofinaayo, oo salaadaas markaasi salaad jannada na geysa inay noqonayso oo sabab noogu noqoto. marka hadda darsigii salaada markii la yidhaahdo faradnimadeeda iyo bacdi falaa'isheeda ka mid ah darsigii koowaad oo salaada intaas ayuu noogu eg yahay.